iyadoo ay waqtigan deegaanada gobolka Daadmareer ka jirto xaalad abaareed oo saameyn ku yeelatay dadka iyo dunyadaba isla markaana ay soo tarayaan qayladhaanta biyo la'aaneed ee ka soo yeedhaysa deegaanada qaar ayay wasiirka wasaaradda maaliyadda Jamhuuriyadda Soomaaliland Marwo Samsam Cabdi Aadan maanta soo gaarsiisay deegaanada qaar deeq biyo oo ka kooban ilaa 10 booyadood waxaana halkaasi deegaanada ugu kala diray gudoomiye ku-xigeenka gobolka Daadmareer ahna kusimaha gudoomiyaha Maxamuud Cali Ahmed Jubba iyo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Oodweyne iyagoo wasiirka maaliyadana ku bogaadiyay sida ay uga soo jawaabtay baaqiyo qayladhaan biyo la'aaneed ah oo ay hore mas'uuliyiintani u jeediyeen. halka waxaan uga mahad celinaynaa wasiirka maaliyadda Samsam Cabdi Aadan oo noo soo dirtay qayladhaanteedii dabadeed 10 booyadood oo ugu horeeyay 10 sano 3 u diray waqooyi iyo xagga in cadami 7 kalena aan halkan magaalo madaxda Oodweyne ku kala dirayno aad baan uga mahad celinaynaa qayladhaantii waa biyii ugu horeeyay ee la soo gaadha waxaan leenahay waxqabadka dalka iyo dadka aad wax ugu qabanayso iyo damqashada Ilaahay ka jisaasiyo aad iyo aad waxaan u hambalyeynaa wasiiradda noo soo dirtay biyaha dadku aad iyo aad buu litaa abaarihii waxa ugu daran biilaan bay noqdeen waanu u baahnayn waqooyi iyo bari iyo galbeed baan u kala diraynaa imika Samsam Cabdi Aadan waanu ku mahadnaqaynaa iyadoo maanta qayladhaantii ugu horeysay ee biyo noo keentay iyadu dhulkii abaar baa ka taagan xooluhu way ka dhamaadeen waxaan leeyahay wasiirka waxaan noo yimi deeqdii horeysay ee biyood ee aad noo keento haddaan nahay gobolka Daadmareer aad iyo aad baan kugu mahadnaqaynaa waxaanu ka rajaynaynaa inaad sida aad noogu booday noogu wado iyadoo ay dalka ka jirto abaar aad iyo aad u badan. Muuse Salebaan Maxamed, Telefishinka Qaranka Soomaaliland, magaalada Oodweyne.